بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي بaa mahadle subxaanahu wa tacaalaa. waxaannu dhex taagannahay masjidkii weynaay oo daarulqur'aan oo haatan soo gaaray shuhuurtii ama bilihii uu soo socday bishii 12aad hadda la gaaray. ilaahayaa mahadle subxaanahu wa tacaalaa. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta rag iyo dumar inaan la wadaagno masjidka sidaad arkaysaan meesha uu maraayo, ayadoo maantaan aanu idin hadlayno oon kaliibkaan duubayna ay tahay maalin yoomul arbacaa oo arbaco ah, bisha muslimka ay tahay oo ah bishii tobanaad ay tahay 21 ay tahay oo bishii ramadaanka ka dambaysay oo shawaala sanadka hijriyadana uu yahay 1442. taariikhda miilaadiyana maanta waxay tahay bishii 6aad labadeedii ayaa la joogaa oo bisha juun weeye. sanadka miilaadiguna waa 2021. ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa. masjidkan aad iyo aad u ballaaran oo intaas shaqadiisa ay socotay sidaad kaliibka ka arkaysaan 2 dabaq ugu dambeeyey ayaa la shubowhaaya. waa masjid saan hore idinkuu sheegnay 10,000 oo qof hal mar ay ku dukan karto. waxaa weeye waxa ku baxaaya iyo hawshiisu masahlana maantaan aannu idinla hadlayno. dadka shubaaya oo baaldiga qabanaya oo shaqaynaaya waxaa weeye 400 oo nin weeye. maanta arbaca weeye, birina yoomul khamiis waaye, biriyo arbacaana 400 oo kalaa gelaysa. 400 ayaa maanta ku jirta oo arbaca, birina waxaa gelaysa 400 oo kaloo yoomul khamiis. ilaahayaa mahadle subxaanahu wa tacaalaa. sidaas ayaa masjidkii shubkii ugu darray ayuu noogu soo gebagaboobayaa. waxaan rabaa marka annagoo marka ugu horraysa u mahad celinayna intii ka qayb qaadatay. ilaahay ka sokow, ilaahay miisaanka xasanaadkooda ha allaha ku weyneeye ayaannu leenahay. weli waxaa weeye hawshii waa ay taagan tahay. masjidka qaybtan hadda aynu taaganoo idinkala hadlayno waa dabaqi koowaad. laboorafiinadiisii waa ay dhammaatay. waxaa u dhiman albaabbo iyo dariishado iyo mutuleel ayaa u harsan. shubkaanu wuxuu meesha saarhaanayaa oo jeegagaasu ku jiraayaan muddo 1 bila, laakiin waa laga sii shaqay karaa. masjidka baahidiisaan idiin sheegaynaa. masjidku markaan wuxuu u baahan yahay mutuleel ayaa nambar 1. wuxuu u baahan yahay oo kalentood albaabbo iyo dariishado oo kala nooca. wuxuu u baahan yahay shamiito oo iska joogta ah, carramaanyada oo sidaasoo kale ah. arrimahaasoo u baahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fastabiqu lkhayraat yow dha ilaahay khayraadka u tartama. waa guri ilaahay. man banaa beyta lilaahi bana allaahu lahu beytan filjannati yow dha nabigu. guri ilaahay qofka dhiga ilaahay jannadou guriga dhisaaya. dadka Soomaalidu waa dad qalbi wanaagsan, waa dad sadaqada jecel. masaajiddan hadda aynu dhisayno hay-ado waaweyn iyo dawlado ayaa dhis. laakiin waxaa weeye qalbi wanaagga dadka Soomaaliyeed oo ahlu khayrkaa dhibaato kastoo ay qabaan waxay masaajiddii ay hadda zaminkan u dhisaayaan qaabkii dawladaha khaliijka iyo masaajiddii aynu ku soo arki jirnay. masaajid lamida ayay ayagoo shacab ahay dhisowhaayaan. ilaahayaa ku mahadle subxaanahu wa tacaalaa.
marka anagoo war idinka badinayn waxaan rabnaa marka baahidii kale oo masjidka inaan u gudubno masjidka in maaragtay loogu deeqo mutaleel loogu deeqo oo loogu deeqo albaabo dariishado shamiito loogu deeqo carramaayo loogu deeqo waxyaabahaas ayaa maaragtay ahaa markaana muhiim ah alxamdulilaahi ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa oo aannu ku shukrinaynaa intii maaragtay ka qayb qaadatana khayr allaha siiyo intii hadda u dhimana hadday ku baraarugi doonaan intii horey wax ula baxdana waa ay la sii bixi doontaa maxaa yeele qofka mu'minkaa khayrka kama dhergowdha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa ilaahay jannadiisa uu ka gaaraayo marka annagu waxaan idinkuu sheegaynaa mar walba inaan idinsoo bandhigno masjidki inuusan dhammaanin oo khayrkii weli uu socdo wax sahlana uusan ahaynin dadka soomaaliyeedna inaannu ujuurta inay nala qaybsadaan oy maaragtay masjidkan cid kastaba ilaahay ugu dhowaado intaasaan idinkuu sheegaynaa aad iyo aad maaragtay u mahadsantihiin ilaahay ka sokow waxa noo dhimanna insha allahu tacaalaa waa dhammaan doonaan waxaa noogu soo xigi doonta annagoo masjidkii ina dhammaynay iftitaaxiisii la gaaray oo aad ku raaxaysan doontaan insha allahu tacaalaa mandarkan mandar ka duwan isagoo ah ayaan rajayhaynaa haddii ilaahay naftan ugu baaqi yeelo soomaalidana meel kastoy joogta dhibaatada allah ka qaado dal iyo dibadba ilaahay idankiisa degganaan iyo khayr iyo isjacayl allahna siiyo oo aan masaajidda aan kula cibaadaysanno oo aannu dalkeenna kula noolaanno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wixii loogu dhowaalahay waa beydkan ilaahay waxa lagu baxsho sadaqada jaariyada wax yar iyo wax badan qof walba wuxuu ilaahay siiyo ou la baxo ayaa ilaahay u ballaarinayaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin haadaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh